على المرضين والدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبناها البلاء وزير الله وزير وزارة قاشانية وزير وزارة مالقاشية وزير وزارة الدنجيتة والقرارينمية وزير الدولة الهناء بلاها وزير كحلينك وزارة القاريد كالجنتك حبناها وراها وكيلها حلوانة قرنك وصوت وكيالك فليا تليها الجودة إذا ماذا قرنك جمهورية الصوماليلاند أبان دولها والله إذا قرنك جمهورية الصوماليلاند gudoomiyaasha gobolada Tuula iyo Saraar taliyaha aagga bari Jabal Ali Bare Hussein taliyaasha kale saraakiisha alifleyda gableyda iyo ciidamada sharafta badan ee maanta tababarka loo xulayo macallimiintooda bahda kooxaha wacyigelinta wada ee kooxda dayaxdaan iyo kooxda gaashaan malxaqadaadka qiimaha badan ee reer Saraareeya halkan fadhiya maayarada degmada Caynaba dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib maanta waa maalin weyn 17 bishii koowaad 2026 waa maalin qaranka qiimo badan u leh waa maalin ay tahay in halkan sharaf weyn bay noo tahay inaanu maanta halkan kala soo qayb galno wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka dufcaddii ugu horreysay ciidamada qaranka gobolada bari oo halkan maanta loogu soo xulayo tababarkii runtii ugu horreyn anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca golaha wakiilada waxaan leeyahay hambaliyo inaan hambaliyeeyo inaanu idinla faraxno inaanu idindiiri gelino inaanu idiin nimaadno inaanu idinla dareen noqono waa waajibaad dastuuri oo masaaran weeye hambaliyada kadib waxaan mar labaa idinku hambaliyeynayaa haladaygii iyo geesinimadii iyo dulqaadkii iyo tacabkii aa u soo marteen inaad ka soo gudubtaan idinkoo qoysa oo timaadaan qaran timaadaan waan dareemayaa inaad hawl adag soo marteen aad iyo aad baan ku hambaliyeynayaa idinka iyo macallimiintiina waxaan kelmad ka odhanayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ciidanka qaranku waa astaanta iyo tiirka uu qarankan ku taagan yahay waa ciidanka Suuriya shaqadoodu ma aha inay ilaaliyaan xuduudaha oo keliya waa ilaaliyaasha dastuurka waa ilaaliyaasha ansaxa waa gacansiinta bulshada waa eegidda ummadda aad baan ugu hambaliyeynayaa ciidankan qaranka akhlaaqdooda iyo siday ugu soo barteen aad baan ugu hambaliyeynayaa intaa marka laga yimaado waxaan rabaa inaan tilmaamo ciidankan maanta halkan fadhiya waxay ku soo beegmay sidii loo yeeyo waqti qiimo badan waxaan rabaa in halkan uga noqon doono madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo markii koowaad ka fakeray inuu xoojiyo ciidamada inuu qarameeyo waxaan kaloo uga mahadnaqayaa inuu ballan qaaday inuu kordhiyo mushaarkooda oo kaga dhameeyey waxaan isleeyahay waa ciidamadii ugu nasiibka badnaabaadkii waxaan kaloo ugu mahadnaqayaa inuu keenay aqoonsiga caalamiga ahaa oo aad noqon doontaan ciidamo tababar ugu baxa waddamo kale si ay u soo kororsadaan aqoontooda oo u gaadhaan halka Jenaraal Nimcaan iyo Jenaraal Cali Bare ay joogaan oo iyagu washalay maalmaha ka mid ah sidaa laydiin tababaray loo tababaray waxaan ku dardaarmayaa ciidanka inay yeeshaan hibilo fog inay u hoggaansamaan sharciga inay maqlaan mas-uuliyiintooda inay iscaawiyaan inaad kala dambayn nidaam ku dhaqantaan kolley wixii nidaam waxay ii sheegi doona taliyihiinna intaasoo hordhacaan iyo odhan lahaanuma haddii laha yidhaahdo waxaan kelmad ka odhanayaa qoladan laga hadlayo shacabka reer Laascaanood iyo gobta iyo garaadada runtii xasan sheekh maxamuud xanaan ma wado xasarad buu wadaa xasarad buu diyaarad ku keenay xanaan ma wado hadduu xanaan wado horuu idiin soo gaari lahaa wuxuu u gurman lahaa dowladda Puntland oo la dagaalamaysa ISIS iyo argagixiso ayuu caawin lahaa oo u gurman lahaa oo u iman lahaa hadduu la jalo wado wuxuu idin wadaa waa xasarad waa inuu dab iyo xasilooni ku qabto waa inuu hareeraha dab idinka geliyo ujeeddooyin ku yintaa weeye waxaan filayaa sida garaad jaamac garaad cali u gartay inaad idin u garan doontaan arrintaana ka waantoogi doontaan haddii laha yidhaahdo waxaan kaloo kelmad odhan ka odhanayaa xasan iyo xamse waqtigii baa ka dhammaaday 3 bilood baa u hadhay madaxweynuhu xasan ma tegi karo jidka soddonka magaalada Muqdisho balcad ma tegi karo inuu helo Laascaanood yimaado waxa keena waa garanaysaa in rayina waa garanaya nacsu loo sheegi maayo intaasaan ka odhanayaa qaranka Somaliland cidda Puntland kuma aha
عندنا لهم والله عندنا كمدوا لنا عندي صوت شاعر ميسا وحي رباحه أضيع هي كم كل دون هذه العائلة إذا كان كم فنديا وحن هو إن أتين إذا جسيالة سوما جسيالة نمان هلا أضيع نمان كتير بدن نمان ولي من الديار ودم كل دون الدفاعان أنا مقوى ما يعني ما عبرا وكيلا وأنا عتاجنا هاي وأنا جلينا وأنا شغالنا وأنا شعوا هاي ما أنت شعب كرهيب سؤال لنا عدو وحنا شيء إن بديهين أنا معارض رهين معارض يا محافظ ويا شيء قرنك حاجة يا هوين إن يفدوا وين ولا ما إذا ما قرك دبل تاجين أيام ما أنت رواينا هذا كم كريشة هذا الكواب بديل ومدنبين وحمصوا ورورنا يا همبليو سومالي لان هنولاتو عدوين هدعو قرك ينأجر وحجوغو ملعوين هنولاتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.